asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamij qayb ka ah barnaamijyada aan ugu talagalnay maalmaha xorriyadda ee 1960kii, maalintaas oo ah maalin si weyn loogu xasuusto gobonimada Soomaaliyeed. waa maalinkii ugu horreysay oo Soomaaliya laga taago calan xor ah oo ay leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliyeed. haddaba barnaamijkeena ayaan waxaan ku eegi doonaa doorka fanka iyo weliba xorriyadda, iyadoo ay barnaamijka ay marti inoogu yihiin fanaaniin ama abwaano rugcadaa ah oo waayo u soo joogay maalmihii xorriyadda, islamarkaasna aan wax badan kala sheekaysan doono maalmahaasi qiimaha ay u lahayd shacabka Soomaaliyeed. haddaba barnaamijkeena oo si gaar aan ugu eegi doono dhinaca fanka iyo maalmihii xorriyadda ayaa waxaa marti ugu ah abwaan Siciid Maxamed Cali Siciid Xarawo, abwaan xasan sabriye afrax xasan gareed, iyo weliba abwaan guuro. ugu horreyn barnaamijka ayaan kusoo dhaweynayaa abwaanada. abwaan kusoo dhawaada, ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay. waxaan ku hormarayaa abwaan Siciid Xarawo. saan la soconno fanka Soomaaliyeed waxa uu soo maray maraaxilo kala duwan marka laga hadlayo dhinaca xorriyadda. qaybtii 60kii ayaa jiray oo fanka xoogiisa qaadka oo bilaawday abwaan Cali Suguliye Allah u naxariistay iyo Xuseen oo Faaraxi ay soo bilaabeen. waxaa ku xigay qaybihii kale oo dhexe oo 70meeyadii ilaa 80meeyadii aad isla soo gaarteen isla abwaanadaasi. adaa ka mid ah abwaan Siciid Xarawo iyo abwaan xasan gareed. way kasii gudubtay 80meeyadii ayay usii dhacday oo jiilka ayaa usii gudubteen, oo way kasii dhacday jiil kale oo abwaan guuro ka mid ayay usii gudubtay oo wax kasii dhahay. marka maraaxiladaas kala duwan ayaan rabnaa inaan fankii ka hadalno. qaybtii ugu horreysay ee 60kii markii xorriyadda la qaadanayay, fanka siduu u ahaa? fanku horta meeshaas haddaan anigu sidaan is leeyahay wadanku wuxuu ahaa koonfur waqooyi u ah. 4 beri waa u dhexaysay markii waqooyi iyo koonfur ay xorriyadda kala qaateen. waa 26 Juun iyo 1 Juun. calankan mid buu ahaa oo laba meelood oo ka tagna daaqliyadii. waqooyi waxay keeneen fan iyo heeso iyo gobonimo loo diyaar garoobay iyo haddii arkuu yahay waxa ka dhacaya adyaalis. annaga koonfur baan ahay marka fan waa ka dhagala'ayn horta waa ka dhagala'ayn laba dhagala'ayn fan waa anaa maqlay waa saas ka walwaday. waxay ka qayb galeen markii la yidhi 26 Juun waxay ku sii daayeen intaasoo heesa ah. maadeeqay bahdiyaal ku yeeyay bakaale canawi calankaada maanta iyo hadii ku yani wax ciidaasoo kale heesa halka waxa joogay Cali Sugulle iyo joogay Cabdullaahi Qarshi iyo rag Abdurrahmaan iyo Islaan Maxamed iyo rag hadda waa socdeen. Allah u naxariisto. waxaan rabaa abwaan xasan gareed inaan weydiiyo 60kii markuu abwaan Siciid Xarawo noo sheegay fanka, iyadoo abwaano waaweyn ay halkaas joogaan iyo fanaaniin waaweyn oo ay heeso qiimo la qaadayeen oo ma u diyaar garoobeen xorriyadda, sidee marka u kulansadeen fanaaniintii oo diyaar ah iyo calankii habeenkii la taagay? maxaa ka dhacay meesha? diyaar garowgi iyo heesihii la qaaday maxaa ka xasuustaa maalinkaas? calan taag waa gowdo candhaadii golaha marise anmaa loo hashee Mutana ise analo ase
mashkuur dabcan Allah u naxariisto abaanguuro laftigiisa waa dhalinyaradii mar dambe xorriyadda ma aragtay fursadeedana cawdeedii dib kala jaan qaaday marka abwaane maxaad ka xasuusataa maalmaha xorriyadda dabcan sheekada dad ku soo gaarsiisaa ogaantaada marka gaar ahaan dhinaca gabayada aan ku siiyo maxaad gabayadii laga sameeyey iyo kuwii waagi dambe aad idin kuga samayseen aad isugu kendiri kartaa بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها walaalkay maada waxay ila tahay horta xorriyad markii laga hadlayo Saciid Xarab oo fadhiya xasagrada oo meesha fadhiyo waxa aniga waxay yihiin aabayaash waasaas marka xorriyaduna aniga waxay iga weyntahay 10 sano waxaan ku facahay kacaankii fanku oo hana qaadayo haddii alla ku ruuyo koonfur iyo waqooyiba isku mid noqday oo fanka Soomaaliyeed oo awood yeeshay ayaan ku facahay laakiin waxa la yiraahdaa qofka dhagtiisu waa ka weyn marka xagga gabayada marka la yiraahdo xorriyadda haddii alla ku ruuyo waxa ugu magac weyn horta ka nasiib ka nasaar ninkii tiriya Cabdullaahi Suldaan Timcadde ninkaas ayaa ugu magac weyn markii la yiraahdo haddii alla ku ruuyo suugaantii loo qaaday calankeena buluuga waxaa kaloo magac weynaa raggii soo halgamayo haddii alla ku ruuyo yahay gabayadii halganka tiriye sida cali xaashi cali haddii alla ku ruun yahay Soomaaliya toosay raggii sameeyey cali xuseen cali suulo asaguna ahay xagga suugaanta aduu rag badan haddii alla ku ruun yahay waa u soo kifaaxeen waana u soo halgameen suugaantooduna waana soo gaartay oo waa aan dhaxlan marka xagga gabayada raggaasaa ugu magac weynaay dhinaca markii la yiraahdo hadda abwaanadu waxay qareen inay koonfur u badnaayeen xagga suugaanta iyo halgankii xorriyadda loogu halgamay inay waqooyi u badnaayeen hase yeeshee waxaan isleeyahay koonfurna ma yarayno Soomaaliya toosoo dadkii sameeyay halkaanay joogeen haddii malyan maydo malaayiin dhammaato madiidin shisheeyeenna maamuli maayo kuwii dhahay halkaanay joogeen marka haddii alla ku ruuya labada dhinacba xubbigaas xorriyadda iyo hilowga iyo hamiga ay u qabeen waa ay ku weyneen waa laga yaabaa haddii alla ku ruuya aaladan la garaacayo iyo qalabkan iyo haddii waa inay xagga ku horeeyaan laakiin raqbada fanka dhinac walba waa ay ku jirto marka haddii anigu waxaan ahay dadkaas gacaankii ku hana qaaday oo fankoo qiimo leh oo haddii alla ku ruun yahay aan dhageysanayo erayadii Saciid Xarawe iyo kuwa Maxamed Cali Kaari iyo kuwa Xuseen oo Faarax iyo laxankii Xasan Gareed soo gaarayaan marka waxay ila tahay dadkii goobjooga u soo ahay oo maalinta indhooda ku arkay ayaa fadhiya laakiin inta aan ka soo gaarnay maqalkooda iyo maskaxdooda ayagu ayna soo gaarsiiyeen ilaa Soomaalidu ma lahayn ba haddii alla kayd kala ma lahayn taariikhdeeda iyo diiwaankeedu waxa uu ku qoran yahay fankeedii iyo suugaanteedii marka suugaanteedu un baa na soo gaarsiisay xorriyaddan dhibkii loo soo maray iyo maalintii xorriyadda sida ay ahayd allaha u naxariistay waxaan dhageystaa aadan cabdulle oo ka khudbaynaya haddii alla ku ruuya meel la igu sheegay daljirka daansoon inay tahay uu hadli weynayo buuqa iyo dadka farxadda iyo qosolka iyo haddii alla ku ruuya waxa saddex yaacay iyo risaastii dabaaldega ahayd oo haddii alla ku ruuya dadku codkoodii ka dheereeyeen risaasta marka waxyaa badan ayay ahayd marka maalintii dhulkeenna mawlihiinna uma nooga meersha cadowga ciideenna laga mudo calankeenna muuq iyo midabkiisu wacan yahay maalin la tilmaami karo ma marka haddii alla ku ruun yahay waa maalintaas uun Saciid Xarawe sheego goormaan ladnaana 60 lugooyadiina deysay 6 saac goormaan libaanay haddii alla ku kowdi luuliya laba midows marka waxay la tahay waa mahad leh caawo madaxeen banaan wax ka weyn ma leh marka waa taabwaane adaa ku watay fanka waa la soo gaarsiiyey marka laga hadlayo muuneynta ama qiimo u yeelidda maalmaha xorriyadda jiilkiina dambe erayo wax isku daydeen inaad wax u samaysaan adiga gabayada aad ugu fiican tahay anaga jiilkeena dambe waxaan soo gaarnay horta haddii alla ku roon yahay xilli qarannimadii iyo xorriyaddii halgankaas loo soo maray oo dhibaatadaas loo soo maray haddii alla ku roon yahay qabyaaladu ay cuntay oo qabyaaladu ay rabto inay cunto ayaan horta soo gaarnay allah u naxariistay cabdullaahi suldaan timcadde calankii uu dhahayay sarreeyo manusqaamo siduu yahay eegna ka nasiib ka nasaar
cabdullaahi markuu arkaa isaga laftirkiisu in qabyaaladu ay cunayso waa kii dhahayay dugsi mala qabyaaladi waxay dumisa mooyaane qabyaaladii uu ka digaayay oo raba calankii iyo xorriyaddii inay cunto ayaan annagu soo gaarnay kaba soo qaad aniga fankaygu ka hor jacaylkii iyo xiisiyaha ay ugu jireen laakiin waxa uu la bilowday waxay ahayd markii qabyaaladu ay cuntay xorriyaddii oo dalkeenna oo burburayo dawladda qabyaaladii asluubeeyeen oo mid walba qaadiyo asku bedelay marka kuwaana hadda haddii alla guro geedland ayaguna laftirkoodu qabyaaladii unbaa waxay asluubeynayaan marka qabyaaladaas haddii alla guraya rabtay inay xorriyaddii baabi'iso ayaan annagu la dagaalamayay cid kasta oo rabta soomaali inay ama gumaysi ku soo celiso ama xilligii hore gumaysiguna waxay isticmaalayeen waxay ahayd qabyaaladda oo haddii alla guraya ummadda soomaaliyeed ay ku kala qoqobayeen tusaale marka haddaan kuu soo qaada aniga gabay dheeraan ka tiriyo oo 60kii ka soo bilaabaya iyadoo 10 sano iga weyn xorriyad waxaan yidhi maalintii dhulkeenna mawlihiinna uuma nooga meersha cadowga ciiddeenna laga mido calankeenna muuqiyo midabkiisu wacan yahay ilaa samanka maanta miriyo xorriyadeed ma gurana maxaa dhacay yaa muusadoo laqay aawa dararti maandeer waa su'aal muhiim oo qalbigayga marati aan idiin macneeyay dulka maqalka iyo fura magac weeye sharaf iyo waa macaan xorriyaddu kamana maarmo aadmigu waase mala habawnayo markii horeba lama helin waa aragtidaydu midabkii cadaayo oo madow lagu bedelay baan madax bannaani moodnay mashriqii iyo munaafiqu isku meherad weeye gumaysigu markuu baxay mabdi'iisii baa haray mudanayaal ku sheegiyo maamul aan wax garanoo musuq maasuq iyo axmaqrin ugu hogaansho maqaarsaara baa kacay mixnadtii ka sii dara gaaladu maleegtiyo mugdi baa dib loo galay maqaam dawladnimo oo meel mariya hadafkii maadeeq u heshiiya iska daaba mudankae sharaf lagu mushaaxe majaa nooqa naga galay manhajkii ilaahay iyo qoon diinta maanaca murugiya dhibaato iyo mahuraaya hadmi intay madaxweyntii mudku haanta la ekaa sidii dumar basayr gala meelaan dani ka raaceen maqraarufaayeen military risaas iyo madaafiic ku raran baa xukunkii ka meersaday dawladdii haddii alla ku rayidka ahayd madaxweyniyaa la dilay madaxweynihii military risaas iyo madaafiic ku raran baa xukunkii ka meersaday askartii markii hore waxay muujiyeen howl ma shaqasa waxay tiid markii odagu nagu yiri nise waan mamnuuco maanta laga bilaabo marwe iyo ninkeed siman ciddii muran ka keento mirkaan iri khilaaftana waa in madaxa laga jaro maxaa wacay kacaankay ku yihiin mushkiladu hanti wadaagga moskey meel uga dhaceen oo maarkiisibkii bay majacaabinayaan annaguna ma diidina majluun fanaan inaan nahay mashcarad iyo sacab iyo muusig iyo ciyaar baa masrax looga tumayo madaxweyne noolow ayaa loogu maadnaqay halkii madaxu aaday majuuna u raacay midnimadii fashilantoo dulmi laysku maagiyo makri curo kacaankii majaraha u qabay qabiilkii muddada iil ku jira midiidaxay miiskii la soo saaray dhammaan maamulkii sare iyo madaxdii qaybaha dhimbo marag madootada muuqatee qarsooneen miisaanka saariyo mililkii la qooshiyo mariidkii oo dhukaashii meel ku shubo intuu karay ma kastoo dhan waxay tihi aan malab durdurtoo maal badan xadhaystay mar iyo awsiiriyo maareeya iga dhiga macaan baa qaraar dhala makaan weyda nabaddii mataaniya isqoonsaday misaar laysu wada tumay miigag lagu duqay uwad masax lagu rodadayaal marwo uu ninkeedii meed yahay iskari xoog muuqaalkii qaranka iyo milatariga eedow minashii biyaa toos maatada u boobtoo muhdi noqay buliiskii meel kastaba shacbigu ku hay muuqaalkii tuutaha murugoo waddanigii madluu noqoy dadweynihii mashaqada lagu wada arag laga maarmi waa dirir 3 magac jabadalii sheegay inay mucaaradii maamulkii kacaankaoo basharaha awoodeed ka muquurinayaan loo mahay warkoodii mal iyo naf lagu kaan midnimo dagaal adag lagu soo mar gobollada madaxtooye lagu yaac madaafiicda goobtiiyo mar hadday gataaliya colkii moosi waayeen meegaarka xeradiiyo muska qaar ka soo galay maada taladu wowkow mahuraanku waa carar wixii dhacay ma moogina macallinkii fagaaray dabadeed maxaa dhacay macbuud baan ku dhaartay iyo maleeshiyooyinkii kacay waa sii muuqda odagii markay muran bilaabeen mixnaddaa waxaa dhigay mar aan tuurna mooye ma uu jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyo mowqif iyo axdi u yidhi maxay dhaxashay taasina 100 baa mar wada tiri anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan garta madarka loo aadnin basheeg mudnaantiis markii hore ninkii kaca majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaanku muddaa silac u soo maray mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maal iyo nafa u horay mid kalea wuxuu yidhi mahuraanka shacabka u maska dila anaa idhi mid kalea wuxuu yidhi midiyaha anaa tumay mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maraay daabka uga dhigay mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo ku miday meesha lala rabay ismaandhaafka sii koran madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuuc inuu helo madfac noqotay xaajadu muruq taarufay timid mid walbaa qabiilkii muusanna iskula tuur yaa maali jiray yidhi ma su'aalin odayadii matalaya beelaha waxa madax qalaale iyo mayd badan inuu dhaco looga maarmi waaye makri loogu ciidamin loona ururi mooryaan miyi iyo magaaliyo maanyaba la xaalufi muraayaddii dalkeenna iyo muqdishona warkeeddaa mood iyo nool naf iyo maal lagu mari dagaalladii
intaasoo marxaladood dib haddaan u meecsado marag waxaan u helayaa maqaam dawladnimo iyo maamul sima dadkiisa iyo madax bannaani lama helin taariikhdu waa maguurtii maskaxdii fayuubaa ka macaashta waayaha mahadhada ku reebe dab munaafaqshada iyo maqal amarka oo raac anaa kaa mas-uulaya muraadkayga iyo fula markaan yeeli mayno makri waa ku daallay maxaa maanta noo dana qaran iyo midnimo iyo ma rabnaa xorriyad wacan macaan dawladnimo iyo ma rabnaa mas-uul haga calan ina matele iyo ma rabnaa danjiro mudan muruq cadow difaaciyo ma rabnaa makaab adag maandeeq hadarartee ma rabnaa isfaham iyo midnimo iyo heshiis wacan macnaha garanay wahaa ma adkay jawaabtuna muslimo waxay tahay mawlaana siiye ku midooba waatan wallaahi waa runtii gabay aad u qiiro oo waqti dheer aan ka soo bilowday lixdankii ka soo bilaabo ilaa maanta bal cashar ha u noqdo jiilka ama adiga kula mida ama kaa yar marka adiga waxaad micnaha waxay tahay xorriyaddaas la soo bilaabay dhibkii loo soo maray dadaanba aan dhadhaminba waa sidaas dad nool oo maanta oo soomaaliya xorriyaddii intaa la soo marayo xilligaas aan qaadan oo weliba aan ahay waddankii ugu horreeyey afrika ahee dimuqraadiyahe madaxweynahooda soo doortay oo kuuka xogay soo doortay aan ahayn ayaan dad dhadhaminayso afkooda saaray marka ma aanaan dhadhamin waxaan leeyahay waa jiilka aniga iga yaraay waa tahay waxaan rabnaa inaan barnaamijkeena iska soo gabagabaysano gabagabadii markaad fiirisaan abwaane idinkoo isbarbar dhigay maanta waxay meeshii ay soomaaliya taal iyo meeshii laga soo qaaday weliba fan ku dabaqaayo maxaa idiin muuqda waxaa noo muuqda wixii la wanaajiyaa waa wanaagsanaadaan wixii la xumeeyaana waa xumaadaan sidaas waay maxaad marka taladiin maxay noqonaysaan aad maanta hawada u marinaysaan dadka idin daawanaya ama idin dhegaysanaya waxa la wanaajiyo ninka hadlayaana ha ku hadlo soomaali inuu isu keeno waa tahay aye abwaan guur adna gabagabadaada waa sidaa ay u sheegeen haddii alla ku roon yahay aabbayaasha fanka oo goobta fadhiya waxaan qabaa horta sida odayaashu u sheegeen soomaaliya waxaa midnimahay ma anfacaya inay qaran noqoto ay midowdo kolleyba dee cid walbana awooddeedu midnimadeeda iyo kartideeda iyo ay ku xihanta kaba soo qaad hadda gobollada waqooyi haddii alla ku roon yahay inay goostaan haddii alla ku roon yahay jecel ama ku dhawaaqo shalay calanka ayagoo sida ayay yimideen haddii alla ku roon yahay halkan xorriyadda ayaa ugu horreeyey koonfur waxaan qabaa horta haddii alla ku roon bal ayagana markooda in calanka loo geeyo oo la yidhaahdo kalama soconne markiina waa kan soomaalidana waxa lagu kala dilayo oo ama gumaysihii uu ka soo galay ama kadib lagu burburinayo ama lagu kala qoqobayaa waa qabyaalad waxaan leeyahay waa dulla qabyaaladdu waa furq iyo daacuun waa cadow difaacayo dugsi aad ka dhugato kaa dooxa maatada waa nacab dadnimada iyo sharafta kaala diriroo ummaddaada kugu dira ruuxaan dakana iyo dembi adiga kaa gelin soo dil kugu yidhaahdo dan gumaysile iyo waa dariiqa loo maro ummaddii la dumin rabo waa kaan kala duqowdiyo jahli deegta noo suran waa durbaan ibliisoo daacadaad u tahay oo aad ka daba hablaysaa ummadday la darisana nabadda waa u diiddaa damiirka waa ka qaaddaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumaysaa calanka waa ka diirtaa aakhirana dabnaariyo jahannabay ku dalaqseen marka dulligaas iyo qabyaaladaas inaan inta ka tagno soomaaliyay adduunka meel kastoo aad tagto soomaali uunbaa ta meel kasta oo aad tagto haddaad haddii alla kuu roon yahay etoobiya ka timaadiyo haddaad jabuuti ka timaadiyo haddaad somalilan ka timaadiyo haddaad gaariso ka timaad adduunka meeshaad tagto soomaaliyaa lagu yaqaan marka wax aadan huraynin oo aan marna kaa harayn haddii alla kuu roon yahay iska xumaynin soomaali uunbaa daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu ku eegayna maanta maalmaha xorriyadda gaar ahaan doorka fanka oo ku lahaa maalmahaasi iyadoo ay igala qayb galayeen abwaanada soomaaliyeed gaar ahaan abwaan xasan sabriye afrax xasan gareed iyo weliba abwaan saciid maxamed cali saciid xarawo iyo abwaan cismaan cabdulle guure oo dhammaantoodba aan uga mahad celinayo sida ay waqtigooda u siiyeen barnaamijkan aadka u quruxda badan ee aada daawateen tan iyo intaynu barnaamij midkaan la mid ah dib u kulmi doono waa bahda SN TV iyo raadiyo muqdisho isku duuban oo idin leh ciid wanaagsan